mudanayaal iyo marwooyin waxaan aad ugu mahadcelinayaa sida sharafta leh ee aad nooga aqbasheen inaad ka soo qayb gashaan kulankan muhiimka ah oo aan ku soo bandhigayno briefing ku bixin doono istiraatiijiyadda xasilinta taasoo muhiim u ah howlgallada hadda dalka ka socda ee looga xoreynayo kooxaha argagixisada muddada 15 sano dalkan ku habsaday deegaamo badan looga xoreynayo maadaama ay howlgalladan ballaaran yihiin waxa la rabaa oo nala haboonaatay in dadaalada xasilintu ay la jaan qaadaan howlgallada hadda socda oo aan looga maarmin waxa dhici jirtay oo aan ka baranay howlgalladii hore in deegaanada marka la xoreeyo ay howlaha xasilintu waqti dambe bilowdaan ayna aad u soo daahi jireen casharada aan hadda baranay waa in marka horeba si siman loo qorsheeyo howlgallada hay'adaha kala gedisan ee dawladuna ay qayb lixaad leh ka qaataan oo arrintaas aan ciidanka kaliya looga harin si wada jir ahna loo qorsheeyo loona fuliyo waxay istiraatiijiyaddan ahamiyad gooniya iska saaraysaa badqabka dadka iyo ilaalinta amniga bulshada ku nool deegaanada dib loo xoreynayo si loo hanto kalsoonida iyadoo la gaarsiinayo adeegyada asaasiga ah ee dadku u baahan yihiin istiraatiijiyadda xasilintu hanaanka dib loogu eegay xasilintan waa mid loo dhan yahay oo heerar kala duwan oo kala gedisan soo maray oo dhammaan hay'adaha dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyaduba ay qayb ka yihiin xasilintu waa taageeridda iyo dib u aasidda maamul dawladeed oo mug iyo macno leh sharcina ku dhisan si meesha looga saaro kooxaha argagixisada iyo in dadku ay dib ugu xiisaan taasoo suurtagal ka dhigaysa in la abuuro jawi iyo deegaan ammaan ah oo xasiloon dadkuna si nabdoon ugu noolaadaan kuna xallistaan khilaafkooda wada hadal iyo wadar ogol waxayna taasi u gogol xaaraysaa horumar bulsho iyo mid dhaqaale oo hana qaada waa soo koobayaa waxa kale oo ay istiraatiijiyaddan iftiiminaysaa ahamiyadda ay leedahay isku xirka iyo nidaaminta dadaalada xasilinta si looga feejignaado isbarbaryaac kaasoo hoos u dhigi kara ka guulgaaridda dadaalada xasilinta dalka si arrintan looga hortago istiraatiijiyaddani waxay bidhaaminaysaa heerarka kala gedisan ee isku xirka howlaha xasilinta oo ah mid heer federaal oo ay garwadeen ka yihiin wasaaradaha ku shaqada leh xafiiska ra'iisul wasaaruhuna uu coordination ka leeyahay wasaaradda arrimaha guduhuna ay hoggaanka iyo hormuudka tahay iyo mid heer dawlad goboleed sidoo kalena waxay istiraatiijiyaddani hoosta ka xariiqaysaa lahaanshaha iyo hoggaanka dawladda federaalka dhammaan dadaalada xasilinta si dawladdu ay u buuxiso kaalinteedii dawladnimo dadkana ugu adeegto si siman oo ay cadaalad ku dhisan tahay sidoo kale dadaalada xasilintu waxay si dhow loogu xirayaa hanaanka dib u heshiisiinta dawladaha hoose dimuqraadiyiinta iyo federaaleynta dhammaan howlahani waa kuwa ay wasaaradda arrimaha guduhu federaalka iyo kuwa dawladaha xubnaha ka ahba ay u xilsaaran yihiin iyadoo kaashanaya hay'adaha kale ee heer federaal iyo kuwa dawlad goboleed waxaan jeclahay mar kale inaan bogaadiyo madaxda kala duwan ee halkan ka soo qayb gashay iyo saaxiibada caalamka oo runtii arrintani aan looga maarmin fulinteeda shaqo badan oo dalkan ka soo socotay 10 sano la soo dhaafayna qayb lixaad leh ka soo qaatay haddana aan rajaynayno in ay ajandaha cusub ee xukuumadda dan qaran oo ajanduhu ka ballaaran yahay kii hore inay wax badan ahmiyadda aan siinayno oo kale iyo coordinationka ay soo sameeyeen hay'adaha dawladdu mid la mid ah in beesha caalamka iyo deeq bixiyaashu waa laga heli doono aad iyo aad baa u mahadsantihiin